ninkan imaamka ahi ma ogeyn inay masaajidka kamarada ku xidhan yihiin bal eeg waxa dhacay subhanallah intaan muuqaalka bilaabin waxaan si sharaf la kaaga codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto kana mid noqoto saaxiibada qiimaha badan ee family-ga nala ah mahadsanid dadka intooda badani waxay masaajidka u soo galaan si ay Allah subhanahu wa ta'ala ugu caabudaan oo salaadana ugu tukadaan laakiin arrinkan haddii kugu dhici lahaa adigoo salaada tukanaya salaada ma dhamaysan lahayd mise wad carari lahayd haddaba waxaynu ogaan doonaa waxa dhacay fiidiyowgan waxa lagu faafiyay baraha bulshada nin imaamaha u dhashay wadanka Indonesia iyo wixii uu sameeyay oo la yaab ku noqotay dadkii oo dhan imaamkani waxa uu ahaa mid tujinaya salaada dadka laakiin waxa si kadisa u dhacay dhulgariir aad u xoogan kaasoo ka dhacay jasiiradda Lombok ee masaajidka ku yaalay ee wadanka Indonesia taas oo fiidiyowgan laga arkayay imaamka iyo dadka ku daba tukanayaba laakiin markii uu dhulgariirku dhacay imaamku waxa uu ahaa mid sugaya dheelitirkiisa laakiin dhulgariirka oo aad u xoogana awgeed ayaa waxa uu imaamkii cuskaday derbiga ama gidaarka masaajidka si uu dadka ugu dhamaystiro salaada dhinaca kale dadkii ku daba tukanayay imaamku may awoodin oo maysan adkaysan mid ka midina inuu salaada sii dhamaystirto oo way yaaceen imaamkuna waxa uu ahaa mid halkiisa taagan oo salaada sii wata taasina waa mid ku tusaysa sida uu imaamku salaadiisa ugu khushuucsanaa subhanallah waxaana uu taladiisa u dhiibtay ilaahay salaadana kama bixin oo muu jarin waxaana uu go'aansaday inaanu salaada ka bixin haddii ay wax kastaaba dhacayaan الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم muuqaalkeena maanta intaas inoogu eegyahay fadlan muuqaalka haddaad ka heshay like saar kana mid noqo saaxiibada qiimaha badan ee family-ga nala mahadsanid intaan muuqaal kan lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh